إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكلمة دي لبعض وحنو بحية كلمة سلسلة إن شاء الله مناسك الحج أو لمبر وضعته 1 2 3 4 5 6 أنت تكتبها إن شاء الله تعالى. لمبر 2 وحن نقول يا الرمو وجار دمرك وحيابها هوينك جارك هرت واحد وقاتان حج كهوينك الرسول كحول صلى الله عليه وآله وسلم جهاد كن الحج دمرو هذا جهاد أجر بدن أدينكم ربطان وحج كويان إن شاء الله تعالى. هذا بنا الصائح إذا قبلنا عن سينا إنه إن شاء الله تعالى حج كاس إلهينا حجا مبرور وعمره متقبل الله إنه قدقوا متك عن سمينا إنه وحال الروائين عمل كاو إخلاص ونقضه وان حجي إنا كان نقنن لكن إلهي درت ونقضه لبو متابعة الرسول كي السنة إنا تكد داشو شركيات كإنا اسك إلى لسو قبلوا إن شاء الله تعالى إني محرم كذي أي لو وضطوا يحجينيسو إن شاء الله تعالى dharka wax alla wixii ay rabto ayay gabadhu ku xajin kartaa dhar gooni ah iyada uma xirna insha Allah taala. gabadha muhrimada ah markaad xaramka aad hawsha bilowdo oo labayka umra aad tiraado ama labayka xaj midkii aad markaa xiranayso hawsha gelayso ilaa hawsha iyada marka ay ka dhamaato inta u dhaxaysana ma sameynaysid inaad jirkaaga wax ka goyso waxyaabo waxa jira muharramaadka xaj la yiraahdo oo aan la ogolayn oo kamid yahay inaad timahaaga wax ka jarto cidihi inaad maartay iska goyso waxyaabaha barafoonka iyo carafta inaad adeegsato waadha inaad disho inaad wax la yiraahdo nikaax oo kaliya guur xilligaas samayso xitaa khidba in lagu doono xilligaas oo kala gabadhii la oran jiray waa la doonaya oo kala xilliga la doono ma aha jimaac lama sameyn karo qubli iyo mubaasharata taabasho ninkaagi lama sameyn karo inta hawsha lagu jiro oo dhan ilaa lagu fasaxo oo aad ka gudato insha Allah taala waqti kooban umurta iyada waa in la iska ilaaliyo iyadana si kooban baan u soo dulmaray insha Allah taala. gabadhu sidoo kale qufaazeyn baalkan la yiraahdo galoofiska lama qaadan karo inta meeshii hawsha xajku ay socoto niqaabki sidoo kale insha Allah taala waxyaabo kale oo gabdhuhu ay isku asturi karaan wuu jira oo ka bedelan laakiin niqaabkan oo qaybkii indhuhu ka banaanayeen le waxay leeyihiin culimadu kaas waa maya midka loo jeeda kaas weeye. gabadhu way xiran kartaa waxyaabaha dharkeeda horan u soo sheegnay wax alla wuxuu rabaa ha noqdo dharku waxba loo kala qaadi maayo gabadhu way qaadanaysaa insha Allah taala. markii gabadhu ay gaadho miiqaadku waa meesha laga xirto oo lagu oranayo dharkii hala qaato waxa la rabaa marka intii la qabaysto haday suura gasho ayaad diyaar garoobaysaa labayka umra baad dhigo hadda qaabkan umrana waa tamattu insha Allah taala. kadib baa haday gabadhu xilliga marka xaaido tahay oo taahir ayna ahayn way xiran kartaa xajka wax dhibaato ama la shuruuda xajkaas kamid ma inay xilliga ay xarmanayso miiqaadka inay taahir tahay kamid ma aha. haddii marka intay tagto maka gasho ay soo samayso acmaashii kale ay gabadhu ay samayso oo tinteeda wax ka goyso oo sacyigii ay samayso oo soo samayso waxyaabihii kale loo baahnaa ay samayso kaliya tawaafkii bay dib u dhiganaysaa insha Allah taala. kaas dib u dhig waan arki doonaa haddii alla idmo. kadib maalinta 8aad ayaa marka la gaarayaa maalinta 8aad marka la gaaro xajkii baa la xarman yawm tarwiya la yiraahdaa labayka xajjan baad leedahay xajkii baad xiran labayk allahumma labayk la sharika lak labayk innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la sharika lak. kalimadan dumarka ayay gaar uga dhigay laakiin kalimada ka horeyso oo manasik al-hajj number 1 wadata ayaan ahkaam badan ku sheegnay insha Allah taala. waad arki doontaa haddii alla idmo marka sidaas ula soco haddii alla idmo. maalintaas 8aad marka mina ayaa la aadayaa duhurka iyo casarka iyo maghribka iyo cishaa'iga waa mina lagu tukan salaaduhu way gaagaaban yihiin laakiin salaad walba xilligeeda ayaa la tukan.
waagu markuu baryo ayaa waxaa la aadayaa maalinta sagaalaadka carafo markii la tagana maalintaas oo dhan meesha la joogi duhurka iyo casarka jamcu taqdiim iyagoo la hormarin baa la tukan doonaa salaaduhuna ay gaagaaban yihiin ilaa maqribka la joogi maqribka ayaa musdalifa loo soo dhaqaaqayaa musdalifa marka la yimaadana ilaa iyadana cishaa'iga iyo maqribkii baa lagu tukan iyagana jamcu ta'khiir iyagoo ah kadibna waa la joogi ilaa waagu ka bariyo dadka culculus way iska soo tegi karaan dadka kale iyagoo way sii joogayaan kadib baa ilaa ay ka sameeyaan waagu markuu bariyo si fiican u bariyo ayay soo dhaqaajinayaan ayib markay soo dhaqaajiyaan ayay maalintaas waa maalinta ugu weyne xajka tobnaad baa la yidhaahdaa waxay sameynayaan jamratul caqabay ka bilaabayaan oo tuuranayaan 7 jeer buurtaasa la gaman kadibna waxay sameynayaan tintooda ayay wax ka jarayaan waa marka labaad marka saddexaadna haddii gowrac jira wixii la waday baa la gowracayaa afarna waxaa la aadayaa tawaaful ifaada ayaa la aadayaa markii tawaafkii weynaa lasoo sameeyay sacyigii qofkii xalaal buu noqday dharkiisiibuu ku laaban wax walba ayaa xalaal ku noqonaya xataa nisaa jamaaci reerkaaga ayaa iyo galmadii markaasaa lagu fasaxaya ayib 11aadkii marka waa habeenkaas waxaa lagu soo hoynayaa mina ayaa lagu soo hoynayaa mina ayaa marka 11aad 12aad 13aad sida fiican saddexdaaba in la jooga ayaa fiican galab walbana buuraha ayaad aadaysaa saddexdii buurood 21 dhagax baad qaadanaysaa midba 7 ayaad kusoo tuuri dhagax walba markaa tuurina Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar baa leedahay gabdhuhu talbiyadan labayk Allahumma labayk iyo waxba inay kor ula jahraan ma aha oo inay kor u qaadaan loogama baahna gabadhu haddii ay iyada oo tawaafkii markay samaysay uu dhiigu ka yimaado welina sacyiga aan samaynin sacyiga way samayn kartaa wax dhibaato ama le way samayn kartaa iyada oo weliba daahir ahayn haweenku sacyi markaan leeyahay tawaafka ma kacbada wareegeeda maya looma ogola laakiin waa sacyi way samayn kartaa haweenku markay sii tagayaan ee xajka la aadayo way awoodi kartaa inay kiniinka waxoogaa dhiigga lagu daahiyo ay sii isticmaasho si ay xilligaa hawsheeda ay u qabsato acmaasha marka la samaynayo oo sida kacbada oo kale iyo ama maarta la samaynayo in haweenku ay waxoogaa xushmadooda ilaaliyaan weeye adigoo wax raba inaad samayso hadda inaad raggii buuranin oo dusha ka korin oo waa in la iska ilaaliyo haweenku marka qaar iyo ragga dusha ka saaran ayaad arkaysa marka in la iska ilaaliyo hadday ku suuroodo marka xajarul aswadka in la shumiyaa la rabaa in la soo dhunkadaa la rabaa in la soo salaamaa la rabaa laakiin hadday ku suuroodo haddayna ku suuroodo xagga meel fog adigoo jooga baa la rabaa inaad ka ishaarto insha Allah ta'ala tawaafka marka la samaynayo iyo sacyiga marka la samaynayo haweenka waxba orod iyaga lagama rabo tartiibtooda isaga soconayaan insha Allah ta'ala gabdhaha marka iyagoo xaaido ah oo dhiigii leh adkaarta way aqrin karaan way ducaysan karaan kitaabtii adkaarta way wadan karaan quraanka way aqrin karaan laakiin kitaabkii quraanka musxafkii baynan qaadi karayn طيب dumarka iyagu culculus oo kale iyo dumarka da'daha iyo dadka noocaas oo dhan iyagu kuwa xanuunsan iyo habeenkaas tobnaad ee hore bayba iska soo gooreyn karaan oo si ay subaxii musdalifa habeenka la joogo iyagu way soo tagi karaan طيب si ay maartay acmaashoodii ay u gutaan طيب gabadha markii acmaasha aad dhamayso oo 11 12 13 ay tahay oo la joogo ee dadku ay baxayaan haday gabadhu xaaido tahay oo tawaafkii hore way gudatay laakiin dhiiggiiba hadda ku dhacay iyadu waxba lagama rabo inay tawaaful wadaac soo samayso oo ilaa marka meesha laga soo tagay waa inaad ugu dambeynta tawaaf soo samayso waxba iyaga loogama baahna way iska soo bixi kartaa gabadhu xilliga wax dhibaato ama leh haweenka laga geeriyooday ee ciidada ku jira ee ninkeedii uu dhintay xilliga xajka iyadu inay aadama inay joogaan oo ciidadeeda dhameysata la rabaa laakiin gabadha haddii la furay oo talaaqaheedii saddexdaa dhammaadeen iyadu way safri kartaa oo hadday maxram kale iyo hesho iyadu way iska aadi kartaa oo way socon kartaa wax dhibaato ah male طيب haddii ay gabadha uu ka yimaado xaadat almar'atu qabla tawaaf al-ifaada tawaafkan weyn oo maalinta 10ka ka hor hadduu dhiigu uu ka yimaado oo ay adkaato inay maaragtay ay maalintaas iyada waxay sugaysaa inay dib ay u dhigatay insha Allah ta'ala dibay iyadu u dhiganaysaa gabadhu insha Allah ta'ala طيب waxyaabahan dumarkii ragga ka xaraamta intaan tirinay waa iskaga mid haweenkii dumarku qof walba intii aan soo sheegay dhowrkii arrimoodan aan tiriyay ma taaban karaan waa iskaga mid Allah subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryayaa
inuu xajkeena xaj mabruura ka dhigo cumradeena mutaqabbala ka dhigo acmaasheena sidii tii rasuulka sallallahu alayhi wasallam nusukii loo sameeyay oo ka dhigo ilaahina subhanahu wa ta'ala bidacda iyo xumaanta inaga ilaaliyo xajkana marka la joogo hal is ilaaliyo oo hadalka iyo wax sheega iyo xanta iyo waxyaabahaas iyo dooda iyo waxyaabaha u baahan in la iska ilaaliyo. Jazakumullahu khayr, barakallahu fiikum. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.